بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إسلافة أنه فرق جود حياة training and development. تبارك يهرمرين شقالها وحقيقة ذهين هولها أي قبته واحدة شقادة يشقالها. وحنا هالكن كأركينا معنوه ذا يصيدو كالفرق جود حياة لبذوذا. عدان كهرمرنو training أما تبارك شقالها وحلو أذيك سدا أما وجود training أي تهي إن لجو هرمريو xirfadaha iyo kartida la xiriirta shaqada ay hadda u qabanayaan shirkadda. Si kale haddaan u dhigno training waxay diiradda saartaa kobcinta xirfadaha iyo aqoonta ay shaqaalaha u baahan yihiin si ay shaqadooda ay hadda u hayaan shirkadda ay si hufan ugu gutaan. Aqoonta lagu qaadanayo marka uu training socdo waxaa loogu talagalay muddo gaaban waxaana la rabaa sidii ay aqoonta ay awood u siiso sidii ay shaqaalaha ku magacaaban qabashada booskaas ay ugu gudan lahaayeen shaqadooda si hufan. Haddaba baaxadda aqoonta lagu qaadanayo training waxa ay xoogga saartaa xirfadaha iyo aqoonta loo baahan yahay oo ay la xiriirto sidii lagu qaban lahaa shaqo cayiman. Si haddaba aan u fahanno qeexidaas aan markan isla aragno tusaalahan aan dhahno Xawa waxa ay ku shaqaysaa booska u adeegida macaamiisha waxayna u shaqaysaa shirkad bixisa adeega isgaarsiinta. Haddaba si ay shaqadeeda ugu gudato si hufan waxa laga rabaa waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo walibana waaxda ay la shaqayso ee u adeegida macaamiisha inay ku tababaraan walxahan sida maareynta cabashada iyo weydiimaha ka imaanaysa macaamiisha. Sidoo kale sidee loo adeegsadaa systemka lagu kaydiyo laguna maareeyo xogta macaamiisha iyo wixii la halmaala ee u suurtagelinaya inay Xawo shaqadeedii loo igmaday si hufan u gudato. Markana aan isla aragno qaybta labaad ee ah development ama horumarinta shaqaalaha waxaana ku qeexi karnaa in ay horumarintu diiradda saarto u diyaarinta shaqaalaha shirkadda dowrarka mustaqbalka iyo mas'uuliyadaha shirkadda dhexdeeda ka jira ama ka soo ifbixi kara sidii ay u qaban lahaayeen markii la gaaro xilligii lagu talagalay. Waxay ujeedadu tahay in la kobciyo kartida shaqaalaha oo laga caawiyo inay horumaraan shakhsi ahaan iyo xirfad ahaanba. Midaas oo u suurtagelinaysa in mustaqbalka dalacaad marka ay imaato ay si sahlan xilka ula wareegi karaan. Development waa geedi socod dheer oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo horumarka waxqabadka shaqaalaha. Sidoo kale waxa ay xoogga saartaa sidii loogu diyaarin lahaa shaqaalaha qaar ee shirkadda ka tirsan sidii ay u qaban lahaayeen xilal hogaamineed ee ka bannaanaan kara ama ku soo biiri kara mustaqbalka shirkadda lacalla haddii la ballaariyo howlaheeda. Baaxadda aqoonta lagu barayo shaqaalaha marka la joogo development waxa ay ka kooban tahay in la siiyo shaqaalaha ku jira xaaladda horumarinta khibrado kala duwan sida hogaaminta la macaamilka waxyo kala duwan ee shirkadda si loogu dhiso aqoon iyo khibrad hogaamineed iyo maamul uu leeyahay shaqaalaha una suurtagelin doonta sidii uu shaqada mustaqbalka iman karta u qaban lahaa. Si aan u fahanno micnaha development ama horumarinta shaqaalaha aan markan isla aragno tusaalahan aan dhahno Xawa oo aan ku soo aragnay tusaalihii training kuna shaqaynaysay waaxda u adeegida macaamiisha ayaa waxaa loo arkay in mustaqbalka ay noqon karto team leader. Haddaba si loogu diyaariyo booskaas Xawa waxaa booskaas u sii diyaarinaya ama horumarinteeda ka sii shaqaynaya qofka hadda ku magacaaban ama ku shaqeeya booska team leaderka. Sidoo kale waxa ay ka qayb galaysaa aqoon isweydaarsi hogaamineed. Sidoo kale waxaa dhacda inay ka shaqayso mashaariic qaas ah oo u diyaarinaysa inay hesho aqoon hogaamineed ee u suurtagelin doonta inay mustaqbalka booskeeda cusub ee ah team leader marka loo dallacsiiyo ay si hufan u gudato. Gunaanad training and development labadooda muhiim ayay u yihiin shirkadda iyo shaqaalahaba oo waxa ay shaqaalaha u suurtagelinaysaa in ay qabtaan shaqada hadda laga rabo
iyo booska hogaamineed ee mustaqbalka ka iman kara. shirkaddana waxa ay helaysaa in shaqadeedii loogu qabto si hufan, balse training ama tababarka waxa ay la xiriirtaa in la baro shaqaalaha aqoonta la xiriirta shaqada ay hadda u hayaan shirkadda sidii ay si hufan uga soo bixi lahaayeen. halka development ama horumarinta ay tahay u diyaarinta shaqaalaha loo arko inay kaalin ku lahaan karaan mustaqbalka shirkadda in loo dallacsiiyo boosas sare ee hadda ka jira shirkadda ama laga yaabo in la abuuro mustaqbalka. xog dheeraada oo ku saabsan human resource management and functions of human resource management fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inuu markale haddii rabbi idmo.